You know what is trending, Brehan? And that I saw one of my last videos. I said, "Inta ashraf ku mashquulsan tahay." What is it called? There's a lot of things that is happening. Africa is okay, and Somalida hurdada kusi noqonaysa. So let's talk about Ashraf. Aniga, the day I lost interest of Wilkas Ashraf because I've seen one video he was doing skincare, and then video kale iso galo wuxuu ahaa, what is it called? Asago spa aadayo, spend the day with me, something like that. Video skincare, I liked it. It was okay. I was like, okay, this is a guy who's taking care of, his body. He looks nice. Then this suka fikira, but like the day I lost him, man, I was like, bro, was the day massage marki loo sameynay, video massage marka arkay, and naag markay massage u sameynaysa arkay. That is where I was like, damn shit, bro, that is not my cup of tea. You've lost it, waxaad qabanaysid mise waxaad rabtid whatever you do in your life, maalinka ku arkay when you would naag massage ku sameynayso, you've lost the plot. And it is true. Qof Muslim marka tahay and you're doing some stuff, waxyaala qarkood marka sameynaysid, you have lost the plot. You have lost the plot. In fact, adiga dhan waa daba gadoonta, adduunya tagtay noqotay. That is when I lost my interest in him, and maalinkaas kadib maba iisoo gelinba videogiiso. Commentage qaarkood markaa akhriyo waxaa ku qoran introduction markuu video soo galo muxuu dhahaa, hi guys, Ashraf waayo, kusoo dhawaada ma ii fiicantiin, something of the sort. So commentage badan aan kasoo ku qoran, video ajanib afiirsanaya xataa, something like that ku qorneed. gabar afiirsado Nuurul Ayn ma la dhahaa, gabadhaas waa fiirsadaa. So ayadana qof ku dhahay, oh, can you talk about Ashraf? And I was like, wiilkan Ashraf la dhahaa, why is he trending in Somalia? Maxaa ka qaldan? Like, what is he? Is he a baddie and all of that? So people are claiming him to be in the closet. So horta qof muslim hadaa tahay, waxaad adi arkin, waxaad adi maqlin, especially inta arkin, nadarta ma saartay, don't claim it. anaga meeshaan ugu soo fadhiisanin, hebel saan waa, hebel wuru adama soo aragtay, well and good, hadda soo aragtay xaqa oladana ka hadashin. But hadda soo arkin, you have no reason inuu qof wuxuu ahayn mise wuxuu yahay aad ku sheegtid, because anaga qariin li isu istaajin ma rabi just because I said something about him. Waxaan ka sheegay isaga, no. So waxaad dandarto don't talk about it. And I was seeing Somali comment sections who amirayaan waxayba ka dhigteen ba a new topic ka dhigteen is trending, Somali it is trending. So marka daadi wiilka nadarto daa soo dhihin, if you don't know him personally, you have no right to talk about it, ma fahantay? But waxa xaala dhaha jirto and behavior kaaga fiirina, how you talk, dhaqankaaga iyo waxaaga. Soomaalida waxay ugu dhagan yihiin wiilka waxa waayo dhaqankiisa, and I think repostiisa xataa waa la soo baaray and people way barbaaraan fahanti. So it is okay to judge somebody dhaqankiisa, wixiisa and all of that. Lakin adiga intuu ku imaaday, intuu social media soo fadhiistay, did he claim himself? He didn't claim it. And midda kale xaq u leedihiin as dadka reer Soomaaliya, if he is doing an active work, is he recruiting dad muu soo aruurinaya, dad muu whatever he's doing agendakiisa dad muu ku sameynaya? If he's doing that, xaqa u leedihiin in la jafjafo, in maxaa la jiray laga hadlo, the whole community inay ka hadlaan. But if he's not doing that, whatever shit he's doing, let him do it. Asagay u taasha hortan fahanteen. Whatever shit he's doing, let him do it. Ininka ka badbadiseen. And you know what? The more ininka ka badbadiseen, the more it's like, okay. haddana soo adeejistay, wixii soo adeejistay xataa they are seeing the result, ma fahantay? But like, okay, Somalili, this one, it wasn't, it was too bad for them. Meel xunay kasoo qabatay, meel xunay kasoo taawaday, soo marka meel fiican ku soconnaa. That is what they will do. But bunbuniska farada badan iyo meelaha la warwareegaysiin iyo haddaad ka waxaysiin oo bulshadiina kale ka wacyigelisiin, he will important dan ma noqonaan faantay. He will not have any name, waxa ma sameynayo inta asaga ku mashquul lahadaan dadkan followayaasha badan haysto, waxa ku mashquulshin how to encounter him fahanteen.
asaga sida ugu hortagi lahaydaan ku mashquul sida ugu hortagaysiin bulshadiina u sheega wax fiican alxamdulillah muslimiin waan nahay balaakin nowadays islaamnimadu ay soo daciiftay adaa meesha ka nikiraysid adaa meesha khamri ku cabaysid adaa meesha sigaar ku cabaysid all of this shenanigans so marka halka mid oo ashraf ugu hortagi kartid iyo hadduu agenda wato iyo hadduu wuxuu ku tilmaamaysiin uu yahay allah yaclam halka mid oo ugu hortagi kartid maxaa waaye dadkaagiina u sheegtid waxaan wax qalad waayo waxaan diinteena ma ku jirto فهمتين as short as that wax fiican ogala hortag balaayg cayda meesha soo bixaysatiin iyo la bambuuninayo trend uu noqday you're proving him right hadam fahanteen so yeah that is the case but for me as Amina he lost the plot maalinka arkay massage inagu sameeyay I was like I'm not in for that aqramadi soo istaajinaya like ba u saartay somebody was doing something bad yeah of which fartaado like-igaaga comment-igaaga aqra lagu weydiina everything waa lagu weydiina so instead waxaad nacnacleynaysid inta kasoo ordaysa wax qeyb soo sameey dadkaaga u sheeg wax fiican bulshada maadaama ay kugu xiran tahay reaction kasoo bixinayso xuma tareyso qofka rab inuu waxaa sameeyo xataa wax fiican ma ugu soo kordhinaysid so wax fiican kusoo kordhi so that you can counter this man that's it